عاو حسينا فنان كينا وين عوالة آذن حسينا إن شاء الله بإذن الكريم برنامج كان وين كبلن قاضي سائد أصويا عذين ما شاء الله بالهسي لا دقيس وايد مول سلام يا سعود الدين سلام الله عليك عوالات مجدين ومن سنة دوان نقول إنه نوي معنا يا إن برنامج واحد كذا كان رباط دايدين شيء إن شاء الله وإذا كنت ديري هستا من عصبة هستا لكن وانجعل هاي هستا وحاول جعل هذا وحاول متقنة دحدي تاكذا إيه أنا نكستو I feel that anyways وإذا سلامة يا وإيه حيستين برنامجك وحين كبلن قاضي درة هذا أمالينا يا أنا وحين هاي بس شو أو بحنايا وحين رجينا يا إنه نقدمت كبح دونه فيسبوك سي عسريسن حقاس بس إنكم سو قوري دونا إن شاء الله إن إسكدوا مشغولك بنا آذن كأن ربا إنا يريه وايو قفل إنتو قفك كلا كشتو وكسو عم بحوج علي هاي تاسع ربا إنا نشوجيو وحاربا كلا إنا إذن كلا شاكيستو فكرة آد وجعشين شاكذا إذن آد وجعشين مرك شاكذا إذن بدينا يا قرال كان يرينا إن شاء الله بإذن الكريم محاكلة أون راعينا يا تاس بس شو وحلوقة هالدي دونو حلوقة هالدي دونا جماد محيشو يجو ساهي وحلوقة هالدي دونا إن قبيلة ده إن لجو جوتشي عربا وحن كهالدي دونا قبيلة ده وإسوا عيسين وحيويدين عيسين قبيلة أقول نعبها أذين كانوا إذن ويدينا يا قبيلة أقول نعبتين بس شو معنيه ساس واي وحا اسكو دايايا ان شاء الله باذن الكريم انو هبين والبو نغلا قيب قاto qof fanaan ah oo ani aan jecelahay oo aan ciseeyo ee saaxiibna ila ah because fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan ma wada aqaano laakiin inta aan aniga aqaano oo igu jiraan Facebook aan cod u dirsanaya walaashay Raxma Roos kamid tahay walaashay Idil Barqad kamid tahay walaashay Farxii Fiska walaashay Laka Xaaj Wacees وبدينهم فنانينتا إذ العدو نستيح إندو يعني ويلشنا وحا جرو إسكالاتشي فنانينتا صدنا إذين ويدينا يا إيو هارون شاكي فنانين صاحبة أهين أما قار صاحبة قارس يقانو قارا إسقرانين إن شاء الله وحا إذين بلان قادا قفل بقروق إذو جوغو سيغو قسلايو إنو قروقي سيغو إسكا أحفاديو وإسكا قسلو أما أفنانك وجعلي أو مقلو إن شاء الله وحان كباب إنينا qabyaalada waa shay xun annaga wadanaan ka imaanay dadkeena qaxootiga ah dadna waxay joogaan wadankeena
dadka waddankeena joogo fikrada kale aaminsan yihiin annagani qurbaha markaan joogno fikrada kale aaminsanahay haddaan reer qurba nahay kulligeena qabyaaladiistaan nahay hadalkayga si fiican u dhegaysta qabyaaladiiste oo dib ma nihin waddankaan jecelnahay waxaan u malaynaa ninkii isoo sharaxaba in uu ama waddanka wax u qaba isdhahaba inuu yahay nin xun taasaan u malaynaa oo qabiilkiisa bis wax u qabanayo maanta waxaan soo dhaweynayaa siyaasi aan aada u jeclaa muuse suudi yalaxow aan dhegaysanaya maasha allah waxaa mar kala dambeynaa ka jirto waxaan arkayay asiga oo codsi weydiisanayo oo ka hadlayo annaga gobolkeena banaadir dhegaystayaa si fiican ii maqlayaa gobolka banaadir xaqiisa in la siiyo waayo maasha allah xamar soomaaliya oo dhan kama dhicin in uu qof waddanka intaas usoo xarbinayay uu codsigiisa dhiibto waa soo dhaweyneynaa qof qabiil cayn kara ma jiro lifekanita ay soo wici doontiin insha allah lambar gooniya idiin sameynayaa ma caynaysiin qabiilka eedeen meesha kama soo jeedinaysiin because ani amno siyaasiyad qabiil ma caayo aniga waa itqaanaan qabiilkayga saan u jeclaana kiin u jeclaatiina rajeynaya insha allah bidnil kariim oodna dhibaato aada mid kale u geysanin walaashiina ahay saa ii jeceshiina idin jecla qofka igu nici lahaa caawa ha igu naco qof aan ku dhibaateena ma jirto qof aan caynana ma jirto even haddee dadka intay baxaan ay tagaan mataqaanaa meelaha kale ee isoo caayaan jawaab ma siin doonaayo go-aan saxaan gaaray waaye waxaan u bixiyey bisbaas show waxaan rajeynayaa iyadoo kuraas lagu fadhiyo xataa inaad jawaabo iyo su-aalo laysku dhaafsan karo inay gabdho isku bedeli karaan because raggeena soomaaliyeed rag fiican waaye laakiin cabaaray isoo hirtinayeen ilaa waxay isoo hirtinayeen intay soomaaliya jirta oo dhan ma maqlaysiin soomaaliya muddo ee dhibaato ku jirta sayid cabdulla xasan kasoo bilaaw ilaa hadda soomaali waxay isjecleed swal ururka ahaa markuu jiray waxaa haddana ayaa markaa nugu soo badatay walaalihii soomaaliyeed aan jeclahayaatiin waxaa nugu soo badatay hadduu farmaajo mariixaan yahay lacala mariixaankii waxayna leeyihiin qabyaalada jooji maxay toole mursadaha hadduu mataqaana aan ka dhashay aniga waxay toole dadkiis waxay ku leeyihin qabyaalada jooji qofka kale oo qofka kale eedeynayo maya qabyaalada waa wadan kartiin haddii adiga kaa qabato sumcad xumo laakiin ha ka qaadin waayo adiga qabiilka markii maskaxda uu kaa galo aa qabiil caysid youtube aa lagu gelinaya marka lagu geliyo 4 sano oo siday xasan sheekh 4 sano usoo dhamaatay iyo maxay toole sheekh shariif 4 sano u dhamaanaysaa farmaajo wuu bixi doonaa noo qabiil ma taagnaan doontaa mase ma taagnaan doontaa qabiilkaas aad u dhalatay mursade ahaan aad ku taageeraysaa ra-iisul wasaaraha ame maxay tolo qoladii waxaa tahay farmaajo u ka dhashay farmaajo saasa ku taageeraysaa maya danteenna way ka weyn tahay farmaajo iyo kheyre danteenna waa waddankeena waa soomaaliya bisbaas show sheekooyinka way badan yihiin waxaan hataa u bedelan karnaa fanaankee jeceshahay u bedelan karnaa laakiin ma ku jirto fanaankee neceb tahay waayo shaqsi binu aadanaa tahay soomaalina waxaan uga baranay inay dadka dhibaateyso ee xanuunjiso siduu qofkaanayti dhibaato u gaarto walaaleyga soomaaliyeed fikradda idinku jirtaa igu jirto laakiin ma awoodin inaad tirahdaan anigaa idiin awoodo gurigaan joogaa timeaan u haayaa ma shaqeeyo may fahantiin ilmeyga alxamdulillah korsa ciyaal isku filan waa beebiyaal ma ahaan waa fahmaysi soomaa anaa time idiin haayo shaqsiyadayda inaad ku xadgudbinin anaa idinka celinayo marka ay soo wacdiin insha allah waxaan idiin rajeynayaa kheyr jimcaha aana balan noo ah telefoon gooni ah aan idiin sameynaya dad badan oo waxaan arkaya lifekeyga sheer gareyn jire laakiin caawa aan sheer dhihin taasna waxa ay sababaysaa waxay isleeyihiin programka aduu ku dhaawici doonaa shaqsi u dhaawacaya male laakiin danta soomaaliya ku jirto waxaa kasoo qeybgeli doona gabdho wadaniyaal ah oo ila kaftami karo oo i weydiin karo su-aalo fiican oo waddanka ku saabsan oo aniga waddanka wax badan aan kasoo maqanahay waddankan soomaaliya waxaa iskale ciyaal say wallaahi kuwa la dhaho waxaa iskale ciyaal casiir kuwa la dhaho waxaa iskale ciyaal kenya ku dhasheen oo maxaa la yirahdaa kuwa dadka afkenyaati ku hadla maxaa la yirahdaa dhalinyarada kenyaati ku hadasho waxaa la yirahdaa sajuu waddankan dhalinyaradaas kasoo tagtay aa ku tashanayso siyaasadda dadka ka hadlaayo waxaan u baahannahay bifadlan in ay wax yar jenji ku sameeyaan ay ku fikiraan odayaasha qaatumadoodii way soo qaateen aniga qof weyn ah dad iga waaweynaa siyaasadda ka hadlaan inay wax yar bedelaan sida dadka kalena wax uga dhaadhaco ayaa nuur waa ku salaamayaa dad badan oo meesha ku jiro waa salaamayaa
waxaa loo baahan yahay aqligeena inaan kaashano waayo aniga dalka soomaaliya kasoo jeedaa calankaygu waa buluug ciidaydu waa ciidii soomaaliya waad fahamteen soo maha dalkan maxaa dan u ah beritoolo qabiilada walaalaha ah ee maanta isnacaayo ileen runta hadii la sheega laisma necbano qurbaha bal fiiri xalfadda dee jirto waa laisla wada joogaa xalfadda somaliland dee jirto annaga tagayna xataa somaliland oo rabta inay gooni u goosato you see respect aa loo baahan yahay waa lays dhalay marka soomaaliya dad walaalahaa nahay dalkeena iyo calankeena dan noo ah 40 sano oo madaxweyne walba soo qabanayo oo qabiil kasta uu yahay hadduu wax naga xumeeyo adinkaa xumeyseen asiga waxba ma xumeynin idinkaa xumeyseen waayo idinka respect ma siinaysaan ma isxushmeynaysaan ma isjeclaanaysaan waa isdhaliili kartiin idiima diidani laakiin jaceylkiibaa idinka maqan jaceylka wuxuu ka bilowdaa guriga ilmahaaga inaad jeclaatid waaye waalidka inaad jeclaatid waaye kabacdina dariskaaga annaga qabiilada meeshan hadda isku foorjeeyo oo isku dhibo aaday isku agdegan yihiin beesha aan ka dhashay iyo tani dhashay ayagu way is agdegan yihiin labadooda ma fahanti dad isdagaali kara maahan dad xataa isxumeyn kara maahan way isguursadaan ilaa gobol isla degaan marka taas kaliya ugama dalnihi basbaas show programkan live facebook ee ka bixi doono ugama dalnihi inaan shaqsi ku xumeynayo ugama dalnihi isku soo dhaweynayo laakiin qabiilada soomaaliyeed oo dhan aan isku soo dhaweynaynaa annagoo ku kaftami doono magaca qabiil maxaad u rajeynaysaa waddankaagana lagugu xijin doono waa idin jeclahay hadda soomaaligayga si fac u fahamteen iyo micniha uu xambaarsan yahay waxay waa sheergarayn kartiin haddii aad mataqaanaa idinka dhaadhicinna dib inaa u dhagaystiina rajeynaya insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa musiga wuxuu ahaa cawaale aadan asigaan ku bilaabnay waayo asigaan jeclahay waa fahamteeno waa bisbaas show abaa bishaaro waa bisbaas show waayo waxaan rajeynayaa inaan kursi kusoo fadhiisto oo ummadda soomaaliyeed aan isdhageysano aan rajeynayaa oo walaalo aqoon-yahano dhalinyarana bedasho kuwa inta ku dhalnay iyo kuwa annaga inta ku dhalnay kuwa la mida oo ka waaweyn baa jira ya waddankoodana jecel u dagaalama xataa dhalinyaro inta ku korta waxaa jirta dalkan holland aniga joogo marokaanta iyo ajaanibta mulukarka waddankan gaangistarka ka ah way la dagaalaan waxay kula dagaalaan I'm from Somalia man Somalia waxa kama sheegi kartid man ya but they don't know qabyaalad wax la dhaho laakiin way yaqaanaan qabiil marka cudurkii lagu beeray wax aan cuyuun baabi'in karana ma jiro ma ahan qabyaaladu cuyuun lama baabi'in karo laakiin annaga isku dayeyno inaan isfahanno markaas ayagaan gaarsiinaynaa wax uu qabiil yahay iyo waxay qabyaalad tahay inay laba kala tahay oo qabyaalada shay xun tahay 26 sano ka badan la isku soo dilaayay ma fahantiin 26 sano ka hor la isku soo dilaayay haddii waa idin macsalaamay marka la hadane macsalaamo walaalahayga Soomaaliyeed one love one peace I love you guys assalaamu calaykum cid aan dhibaateynayna ma jirto cid aan eedeynayna ma jirto gurigaygaan joogaa mujadiino una love assalaamu calaykum waa idin jecelayaa